faaladan kor ka muuqata waxay xambaarsan tahay dhowr dareen oo isku jira. Waa marka koowaad waxay xambaarsan tahay sida idin muuqata in qofkaasi ka falceliyay muuqaaladan soo duubo ee aan ku soo duubo meelaha deegaanka quruxda badan ama dhirtu iga dambaysa ama buur ha noqoto ama biyo ha noqoto. Waa midda labaad wuxuu raaciyay hadal isaga uu u muuqdo hiilinoo kale waqtigaa gabay, yacni imuu weydiin maxaa kugu dhaliyay kugu riixay inaad meelaha dhirta wax ku soo duubto. qofkaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. dabcan dadkuna waxa ay wax ka yiraahdaan waa waxay arkaan, waxay maqlaan, waxay dareemaan, waxay loo sheegaan iyo waxa loo wariyo. iminka shandadaydiiba iyo qalabkaygii baan sitaa, xafiiskii baan u socdaa, laakiin waxaan jeclaystaa inaanan dadka xafiis wax ugu duubine marka aan wax yar dadka la wadaagayo meelaha deegaanka ah inaan wax ku duubo. dhowr meelood baan leeyahay wax ku duubo sida geedka idiin muuqdo oo kale. waxaan idhaahdaa stuudiyaha dibadda sida muuqaalka yar hore aan uga duubay. waa geedkan labadaa geeday isku sidkan waa 3 geedba. marka geedkaas soke weeyaan stuudiyaha oo halkan aagan weeye laantaan hadba wixii la suranayo kasay markay dabayshu dhacaysana dhinacan baa laga maraa. ku soo dhawaada stuudiyaha hawada u furan. dhowr meelood oo kala jira laakiin for security issue meelaha kale ma sheegayo. waa dhowr oo buureer yar iyo meelaha aan tago iyadana ay cayiman. waxaan aad u jeclaystaa meelaha inaan wax ku duubo laba waxba igu riixa. waa midda koowaad waxa dibadda lagu duubo dhirta ama meelaha dadka dareen gooniya u samaysaa. waayo waxaan aaminsanahay sida in badan idinka mid inaad jeceshihiin dhulka, biyaha, buuraha, bii'adda inaad aad u jeceshihiin. sidaa daraaddeed muuqaalka lagu duubo stuudiyo qurux badan oo dhaldhalaalaya oo layr lagu xidhayo inuu ka macno duwan yahay muuqaal lagu duubay meel dhir iyo biyo iyo sida meeshan oo kale yar idin muuqata. qofkii wuxuu ka yar nasanayaa iftiin iyo wax badan oo maalin walba arko. marka qofka waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay. waa doorashay waxaan doortay ee waqtigii muu gabin. yacni waxa weeyaan ma dardaarwerintu ma fiicna qofka in la laakiin qofka waa lala dareen noqon karaa, waa si la weydiin karaa. horaa la weydiiyey maxaad ka doontaa meelahan yacni dhirta iyo maxaa inta badan marka horaan uga joogo muuqaal hore jiraan kaga hadlay inaan jecelahay dhirta iyo buurta iyo meelaha bii'adda quruxda badan ee deegaanka inaan jecelahay. sidaa daraaddeed aan u booqdo una doorbido inaan muuqaalada ku soo duubo. aad baan idin salaamayaa.